soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada meel wada joogtaanba شمي سودو علي وحلا سولها يا عاو ما جرتو علي وحلا سولها يا ما جرتو دول قرير وين عاو wax walba waan sheegaynaa adeer wax walba waan sheegaynaa inantay hooyadeed hadhulka tuntaa iyana horay haadiska u barataa xeebta Djibouti laga xaday Soomaali baan caawa ka hadlaynaa waan ka hadlaynaa wax walba waan ka hadlaynaa adeer waan ka hadlaynaa waxa weeye waxba waa la dhaaf waayay hablihii saldanada lacaaya inanta qura saldanadu waxa u dhiganta ma taqaanaa hal qura inanoo saldanadii beelweynta garxajisi ka mid waxa u dhigantaa 100 hablood oo samroon u dhigantaa 100 hablood oo samroon taas waxa dadka la sheegay ee masaakiinta ah ay u dhigantaa sheer gareeya waxaan ka hadlaynaa naagtan baan ka hadlaynaa arinteeda iyo ciyaalkan ay soo diratay halkan gacanta baa xoogay wax iga gaadheen laba xun oo magaranaysaa alkoolistaal la soo diray labadana waan ka hadli doonaa arinta wixii ku dambeysay iyo qaabka wax u dhaceen soo dhawaada dhamaantiinba soo dhawaada meel walo joogtaan soo dhawaada aadna waa idin salaamaya jeegandii soo dhaw barnaamijyada beejiska nagu tuura waxa weeye adeer cid walba taariikh bay leedahay caawo samroon inay ku faanto aqoon-yahanimo inay ku faanaan waa waxaan sugaynay waayo ninkii ugu horeeyay the first Somali person ku biiray Harvard University. The first Somali person joined Harvard University is claim from wuxuu ka soo jeedaa garxajis gaar ahaan Cidagale Xuseen Tansaaniya baara taariikhda baara ninkii koowaad ee jaamacadda Harvard magaranaysaa galay ee Soomaali oo dhan ummadda Soomaaliyeed wada jecel oo dhan ninkii koowaad ee Soomaaliya galay wuxuu ahaa nin garxajis oo Cidagala Xuseen Tansaaniya la dhahdaa labadan aad igu sheegaysaan professorada ee wax matarayaasha ah tuugta ilma samatarna iyaga qiray inuu ahaa qofkii koobaad ee magaranaysaa jaamacadda Harvard University galay Xuseen Tansaani iyaga amaanaya aqoon horta halkaasaan ka taaganay saldanadna cid igu faani kartaa waan ku soconaya naagta ilka badan iyo waxay soo diratay caawa kabahan la dulmaraya iyo ilmo qulun qaraar iyo ilmo xaraami oo dhan iyo ilmo jawaabiis oo dhan kabahan la dulmaraya iyo waxaan la dhalin iyo kuwa magaranaysaa naagahooda magaranaysaa ay iska fureen ee ka yaaceen markii ay leefka ka bixi waayeen ay naagtiiba weeday wax magaranaysaa ay hawsheedii magaranaysaa qabta ay ka yaaceen waan ka hadlaya 15 inanoo yar baa soo jawaabay qaar waxay leeyihiin inamada la keenay meesha hooyey qaar laba macallin keenay caawa qaar kilibadoodii iyaguna qof makhnuud ku sheegayo oo maqlaysiin baa lay keenay waxa lay keenay magaranaysaa ay naago rag keligii oo garxajisa kaga cabaadiyay keligii I'm only one person hal qof kale garxaj soo hadlay ma aragteen qof kale garxaj soo hadlay wallahi billah arintan waan ka hadlay arintan gacanta waan ka hadlay caawa laba xun oo magaranaysaa alkoolistaaba la soo diray naaga ka dambeeyay shurqool bay ahayd waan ka hadlayaa buugiina halkan uu yaala taariikhdoodan soo fanfanay reerkan la leeyahay magaranaysaa hunu ayaan caawa isu leenay aqoon bay ku faanayaan ninkii koobaad ee jaamacadda Harvard University galay yuha Soomaali Xuseen Tansaani isu waa kuma Xuseen Tansaani ma taqaan cidu ma taqaan aqoonsad u faanta beeraley baatay ilku inta dhaadharine waxa weeye arinta waan ka hadlaya gacanta mid xun oo ilka dheer ah ayaan feer ku dhuftay waan garso xun baan u garaacay arintaasna waan ka hadlaya iyo raggaas halka imika joogan iyo magaranaysaa qaabkii loo qabtay wixii oo dhan ka hadlaya iyo magaranaysaa CCTV kamarada magaranaysaa qarsoon meel walba taala street wala oo lagu soo weeraro bay taala kamaradu Europe America meel walba CCTV meeshan imika ka hadlayo way ku xidhantay wala ogi action ka sameeyo waan sitaa alaabteeda waan sitaa waa diyaar baan
diyaar baan ahay idinku halkaa jooga sheergareeya waryaa waan ka hadlaya waan bilaabayaa waan bilaabayaa iminkaan bilaabayaa waxaa weeye samaroon waxba iska celi mayso iyo reerkaa kale habar jeclaa fata xunta wax liyo wax iska celinayaan ma jirto waana ka hadli doonaa arrintusay u dhacday caawa fiidkii bay dhacday waana ka hadli doonaa siduu magaranaysaa qorshuu dhacay iyo raggaas halkay joogaan waxaasoo dhan waan ka hadlayaa waan bilaabi doonaa waxaa weeye aniga dee samaroon iyo habar jecel waxoo dhan hadday soo raacaan dhammaan hadday soo raacaan wax allii waxay iga qaadayaan ma jirto sida dameerka ayaan fulay waana dee qorsho moogta way jirtaa oo shirqoolka weligii wuu jiri jiray laakiin nin u diyaar garoobay oo og baanahay wax walba og yaa nin geela 3 uga eeg baanahay socodka faruurta iyo tuurta 3 geelaan uga eegay 3 geelaan uga eegay ma garatay والله يستاقي ما قرأتي marka waxa weeye waanu ka hadlaynaa caawa wax alliyo waxaan reebanaynaa ma jirto walaa ilka badan walaa mid qaysha walaa mid mukhbaarad ku jirta walaa mid qabxada walaa mid magaranaysaa fiidiyoyadeedii oo dhan tumashadii wixii oo dhan waa laga hadlayaa inama yar bay soo dirsatay soo maaha iyagu labada qolaan ka hadlayo inama yar bay soo dirsatay soo maaha kilibadoodii waan la wada degay waan haystaa waan soo dhigay kuwii caawa dhan hooyadaa hayay qaaraad rag iyo dumar waxay yihiin aad garayna hooyadaa haya ayaa magaranaysaa macaa la soo dirsaday iyagiina waan hayaa kilibadoodii kuwii soo hanjabayey wixii oo dhan waan hayaa wixii oo dhan waan hayaa kuwii soo hanjabayey kilibadooda ee meelaha ingiriiska soo hanjabayey ee lahaa waxbaan maxkamad saaraynaa waxoodii o dhan waan la degay arrintanna investigation baa lagu samaynayaa meeshanna adeer sharci baa ka jira kolba ina yaro olkoystaa inaad soo dirato wax alliyo magaranaysaa ay qabanaya ma jirto nin biraha qaadqaadana waan jilciyey labadii midna waxaan malaynaya inuu fataxun ahaa midka kalena kulli waa samaroon waa naagtaasaa soo diratay ilkaha badan leh waan ka hadlayaa heestii cabdiqaysna waan ka hadlayaa waxay ku baxday iyo sheekadii ku timid oo dhanna waan ka hadlayaa adigu wax alliyo cidaan ka baqanay ilaahun baan ka baqda anugu cayaan dhalay baa tiino masaakiine oo beeraleye aqoon bay ku faanayaan dadkii jaamacadaha ugu waaweyn caalamka Harvard University Cambridge University galay ayaa annaga adeeradaya saa aduguna aqoon baan leenahay aqoon xasiidaad sa loo cuno taqaana ilka dheer wax alliyo wax kalood naf caawa 15 nin baa soo jawaabay 15 nin baa kaligay Facebook qaaq kaga siiyay Facebook-gan adeer anaale Facebook-gan ma wada joogayno Facebook-gan mawlid baa looga qaxaya mawlid oo nin laandheera oo banaan degay oo libaaxsan ka taabta ayaa looga qaxaya jarjariyo waxaas ma joogayaan iyo inay yaro aabaan lahayn oo la leeyahay in Djibouti baa la dhahdaayo magaranaysaa aabihii Djiboutaawi la leeyahay oo ninka dhalayna uu yahay nin garxajis horta nin garxajis dhalay waa garxajis bal habar jecel inanka annaga Ilyas la sheegay jooga Jarmalka naga haysato in kale waa la arki doonaa garxajis hadaan nahay
inay naga haystaan one single day inay naga haystaan waa la arki doonaa waayo waa inankaygi waa biyahaygii annagaa kaa dhalnay kan kale garaca annagu maanu dhalin ee samane waxa dhalay maalina wuxuu sheegtaa muuse ismaaciil garxajis buu maalin sheegtaa oo ku soo gabada maalin bareer buu sheegtaa laakiin kaas anagu maanu dhalin masamanuu sheegtaa marba wax buu sheegtaa kaasi kaa halkan jooga ee faransiiska ila jooga kaas cid dhashay anu ma garanay laakiin kan kale jarmalka jooga waxaan ku dhaaranaynaa inuu aabihii ma dhalaysahaa la ogaa magaranaysaa annagu aan dhalnay annagu ayaa dhalnay kaas oo caawa cid magaranaysaa naga qaadi karta oo ilaahay leeyahay ma jirto cid naga qaadi karta oo ilaahay leeyahay ma jirto no arrinta gacanta waan ka warramayaa arrinta gacanta waan idin sheegi doonaa waan tusi doonaa inta waxay yihiin waa ilig moogta ilig waxa weeye ilig marka aad ku dhufato nacaska oo dhan waxa weeye ilkaha dhaadheer leh oo qof aan dee ilkiisu boysina weyn waa boysin waa ilkaha maaragtay qofka markaan iska cadayan kan jarmalka jooga isagoo haaruu leeysa dumarka haaro ayuu leeyahay wuxuu garan waayey qolooyinkii magaranaysaayey for livinka ama magaranaysaayey dawooyinkan ama waxaan dee qolooyinkan sheega magaranaysaayey brodhagyadan magaranaysaayey qofka nafaqeeya in loo doono weyn kaasoo magaranaysaayey waxaa la siiyo weyn waad soo qabanaya waan bilaabayaa amiisho bishir waan ku salaamaya waan salaamaya dhamaantii waan salaamaya gacanta niyo waan ka warrami doonaa gacanta waan ka warrami doonaa futaxun iyo waxaa magaranaysaa soo weeraray ilaa wax kale ma hayaane iyo waxaas dee meesha joogay iyo waxaas dee waxaa jarjarka ee afartaa cogdado hayse ee laysu gegeeyey weer moogta oo reer sheegta reer sheekh isxaaq waa 8 nin afartaa cogdado hayso ee cogdada la tarmi waayey reer qura sheeganin iyo waa samaroon waa labadaas weeyaan waa labadaas inamadii markaa shan waa halkan lagu wada jawaabay dhamaantood to 15 waa uu jawaabay caawa soo dhow روكسلام بسم الله الرحمن الرحيم ما قعمك قوان نيو ku socod waa xogay waa warkaysi waa bana hadda soo kacan ugu gacantu sidoo kale gacanta ma ku gooday ma farba ku gooday ma see wax yiin macna niyo waa ilig baa igu jira niyo waa ilig baa de iligii baa galay markaas waa xogay waa wada suusi doonaa ee barnaamijka maxaad kaga qayb qaadanaysaa wuxuu dhaceen waa ka hadli doonaa sax marka okay ما شاء الله رجي مهدو حوي رجي مالها هيا قعم لو هيا باترين باش شيء قعم لو هيا إلا يوم الدين اللي سكوه يستوى حيث يدا لفت يدا لسكوه قبصري كورن ناقتها كورن والله هذا هو نيو هو اسكيه بدبنيو هو مهدو حوي يورت أنت نوفا فاهين قابك إنك كوسا ورن أيوة مركز نوفا فاهي لكن مهدو حوي دتك مالها يورت نو والله يا بوليس كانوا ديبي وأنا قراعي مقران سواء labadii والله inkastoo mid kale labadii ahaayeen صح ka saddexaad laakiin waa soo meesha kamarad baa ku xiran oo la arkay wala raadinaya kaas saddex yahay laakiin saddex ma labo ma waa saddex weyn waa saddex ka kale laakiin waxa weeye isaga uu carray laakiin labadan kale maqraan saay waa meesha dad baa marayay labadan kale waa iyaga waa maqraan soo lahaya guriyahay tageen baa lagu soo qabtay niyow aniga hadda kula hadlaya kama saaxan ilaahay hanjabaad iyo balaayo iyo wax soo wacay iyo wax dhahaya gabar baa saan iga farxumaysan gabar baa magteeda qabtaan gabar baa saana cid loo samaroonka ruanti kullu leef soo galeen iska aniga waxa jira dad mas'uuliyiin macal waliba mas'uuliyiin oo garanay samaroona oo socay ugu ciini macnaha igu haysto macnaha inaan dilnay gabar waxa ka dilnay macnaha oo waxa weeye gabar magteeda aan galnay qof aan dilnaa garanayna iyo waxa aan dilnay niyow xilligan joogo baashu gacanta tagtay cidna wax laga xog badna sirgaal baan ugu ahay halka waxaan uga faa'iideysto in aan sirgaal oo wallahi been sheegmay wallahi koorso 10 korsan qaba aniga askari baan jiray waxa weeye kuma doosa ilaahay wuxuu soo baray waxa jira waa dadka sida loo dilay soo sooxiyo iyo waxa weeye ilaahay baa tahay baray oo waxa ahay sirgaal baan ahay dhameystiran 10 korsan qaba waxaan ka faa'iideysnaa beesha samaroon oo waxa weeye intaan soo wacaysa anigu oo Soomaaliyeed ma ahay 10 waxa weeye koorsan waa qaba waxa weeye balaag soo galay xaafadda soo galay warnaagtini waxaan iyo ka hadal ku soco inta oo diibatay ka hadal naagta aan ku sheego naagta haddaan sheegna oo kale waxaan rabaa caawan inaan ka bixiyo waxa weeye hanjabaad u dambeysay wallahi bin ku jid maqashay hanjabaad u dambeysay ka bixiyo waxa weeye hadda aamuso xun wadin wallahi billahi oo tallaahi kuwa naagaha waxa weeye jooga
ingiriis soo naaga naagu dhacoosh weyn leh naasaha waa weyn isma aqaan waxa magana midna naasa weyn naag ima doofaar raadi hargeysa hooyadiis anaa wasa iyo dhilada dhashay wala soo eriyay war ani ma hooyadiis iyo dhilada shibana wasa war mid ba soo wacay mid ba soo wacay naas weyn mid naas weyn jooga baalka ingiriis ku nool wuxuu baan ducoonayaaba samaroon baan nahayo aqoon baan leenahay wax u leenahay macna annaga leh wadanka Yurub aqoonta leedahay maxay naas weyn hoos ay dhalay weeyaan man doofin ay dhalay weeyaan macna ay dhalay weeyaan ani bala waxaan ku qaaday wallahi oo billahi oo tollahi ani maqal aniga anigu hadda maqalsa misaal soo wada waxa weey samar ma soo wacay samar وراها بلا صوعي لما سجونين ناقته اسمه صوعي ناقته ودني كم صوعي بالتالي يفتال كله صح كسعه هذا كوجي مريا قبل لها اصلا قلنا قفتان الكاب بدن هذا كو شيغيا الكاب بدن ناقته لها الكاب بدن waxba kan sheeg laakiin ku sheegaya macna waxa ahayd ilka badan nada qaba baakiin ninka la qabo Kenya ay isku barteen meesha naagta ay ku dhashay waa Kenya anaga hadda runtu ka cadeyna macna Kenya ku dhashay waan gar ilmahan ay dhashay si fiican maqlanay waxa la baqri anaga waxba qarmayno waa macnaha waa xishoon oo waxaan dabool oo daha wax saaran ani maqlan macnaha daha wax saaray oo wax daboolay ma ahan waxba daha saar may runta kale wax kusoo adiga runta wax liya daha wax saar may wax aan daha saarno ma jiro معناها dadku waxa rabo bootenay bal inaad bootenay markoo si laakiin xilligan sax ma maqal saartuni ani waa kafaar ma waxa la kafaar bay u dhacay la kafaar ma uu qaba waxa si kala xilligan oo joogo naagta ka badan baan soo dhaay naagta ka badan horta soo jibisa waa artay sax video oo la wadaagaya waxaan Nairobi ku tumanaya soo ku soo hay ma video noo hay video noo hay فيديو نوحي horta barnaamijkan video hay macnaha ceeb caaws qota ceebta caaws soo qotana waxa rabaa in lagu wada ceebo video haysta sidaan war ku hayo caaw wax ka cusubna videoga wax badan ma qarinaysay caaw waxba ha qarin muddo badan ma qarinaysay anagu aqlaan waxa sidii laakiin caaw waxba sheekada ku soconaagta sheekada naagteeda ku soconaagta habaqan hooyada iyo samarad ku yaali ilaa wada dhashay dhantooda naagta ilkaha badan صح naagta ilkaha badan fankii wax loo waa musiibo loo soo diray fanka waa musiibo macnaha waa qof musiibo ah oo fanka loo soo diray cishriga soo ya waan gartay صح dadkii macnaha ayada macnaha fankii baa loo soo diray fankii musiibo loo soo diray way koob koobaad maxaa khad ka khaldanay waan gartay صح waxaan soo qaban doonaa qof kale soo qaban doonaa waxa weeye waan ka warrami doonaa arrintu soo dhacday waan ka warrami doonaa hal qof baan soo qabanayaa oo asxaabta meesha ku jirta ah kadib barnaamijkan idin bilaabaya waayo waxa weeye magaranayay samaroon iyo habar jecelo weligood baan magaranayay anigu dhakada ka weysu jiray ayuu dhashay yes boss aaraamiin weyn mawlido isu waxa way mugdiga ka baxniyo leerka tagniyo leerka tag ma waa socdaa Soomaaliya sax waa socdaa niyow dhageyso waxaan ku sheegayaa naagatan baastarada ah ee dhaqanka xun leh dhageyso gabadha Soomaaliyeed miskiinta ah family leh reer kale intee u tagtay reerkeedii ka burburisay oo afartii ciyaalka ahaa maanta waxa weeye aabalaanta dhigtay dadka qabyaalada ugu hiilinaya waxa weeye meelaha ka soo booteynayeen waxa weeye waxbaan saa yeelaynaa sharciyadan celinaa hadda sharciga haddaad celiso adaa taas lagu haystaaba horta waa good point wey inaan life la soo gasho sharci baan qof ka celinayaa wadankee tahay wey adiga ma wadankii sharciga dhiibaa tahay maxaa tahay aqoontaadu marka hadday taas tahay macnaha sharci baan celinaya hadday aqoontaadu tahay waxba ma haystee hadday sharci baan celinaya hadday aqoontaadu tahay iyo waxa aad ku faanaysay adeer waxa weeye adaa baxar ku jira videogaasna waa la degsaday horta pointiga horta adaa lagu haystaa inan gumeed ku dhalay midda labaad nin landheera ah
oo garxajisaa tahay waxa weeye soomaali oo dhan baa u barbaadigi kartaa cid wax kaa qaadi kartaana ma jirto aad iyo waxaan kuu sheegayaa facebooka kan muddo 2 sano ku dhow waxaa laga caayay maamo la yidhaahdo maama milyuun oo dadka dhan isugu tageen oo ummaddii oo dhan waxa weeye qof walba soo caayay dad ma lahayn miya waa dadkani maxaa loo caayi waayey oo looga celin waayey dadka waa iyada naagatan saqajaanta ah ee istubidada ee faamilka dhisan intay maaragtay waxa weeye dhex gashay reerkaas baabi'isay waraa maanta in laga hadlo oo laga qabtay ahayd waxay ahayd maanta in ummadda Soomaaliyeed laga celiyo ahayd waxay ahayd in laga dhiibiyo leeyahay reer baa dumisay nacalad Allah kugu ridee may maqlaysaa si fiican ha marka waxa weeye guntu wada dhashay ee live-ka soo wada galayay wada qaabka daran leh dad baa sharci ka celinaya ku haya gaarigaygii baan ka soo dego hadda waa intaas yartaan lugeynaya marka highway baan goynaya wax folxumo badan weeyaan calafiya ha may maqlaysaa ma dhilo weeyaan sax marka naagatani naag dhaqalna maahan waa naag quruntay oo waxa weeye wixii u soo hiiliyana kaalay naagta siilkeeda miyaa la leedahay nacalad baa waariskin ku taale naagatani wixii doonaa fuulaya wixii gabadha iyada milyuun baa 1 sano 2 sano la caynayay oo kan bidaarta leh ee Faransiiska kula jooga caayay oo wacalka ah oo inagumeedku dhalay ee waxa weeye naasaha leh ah oo kuwa badan caayeen oo dadka dhan caayeen maanta ma aragtay in naagtan dhaqanka xun la meeshii ummadda laga qaban lahaa oo dadka la dhihi lahaa war naagatani waa waxa weeye dhaqan xumo wadaa reer bay dumisay baa qabyaalad loogu adeer qabyaalad cidna laga badiyo wallaahi billahi ina qabyaalad naagatana waxa weeye 24 hours waa la caayay hadda ka baxay anaa soo galaya anaana karbaashi ayadii hooyadeed way maqlaysaa wax qaban kartaa iyo hooyada waxay dhashay midda labaad dhageyso korkaaga itaaban war 15 nin baa caaw armay maqlaysaa korka ay qoday soo dirsadeen oo ilkaha jabiyay oo booliis u dhiibay waana la tarxiilaya meesha annaga ka talna garxajis korkaagana itaaban karta malahan madaxdiisa cid ka degi kartaa ma jirto waan sawiradiina waan dhigay waan u diray bal fiiri qabyaalad darteed wixii boorama ka dhacay waa ogeed waa la soo dhaweeyey waa hadda nin naagtiisii soo dhacday nin naagtiisii ka soo dhacday baa waxa way caleemo lagu soo dhaweynaya ruux dhaqan xumaa ruux maxay ama dugaag baa wax adeer gacal iyo waxa way meeshan jirjiraac lama qoro waxaad ku noqotaa habeenkii dhaweyd ee migraans ay ka hadlaysay raxma roos arrintii ay ka hadlaysay ka hada ee naagtan ka sheegaysay raxma roos waxay tiri waa qayshaa waxay tiri Nairobi baan isku naqaanay may fahanti sax waxay gashana maartay waa la yaqaanaa bay tiri waan gartay may maqlaysaa صح وجهك والله أركان وجهك قرن أنت كوسة يوروب كوسة والله أنا قبوا باكر أدر والله كرباسي يجي هو ما يفهمت سيبوا ناكسن marka ina gumeedka hadda meeshan wax ka qorqoraaya ee waxa weeye waxbaan dilayaa iyo war adigoo kale waa la yaqaan fulay waxa taa cararayo labada lugood maaragtay furaya darbaaxa ku dhacdo waxa weeye xiniyaa wax ku dishin maya ninkan amiir ninka dhageyso ninkan amiir ninkan la leeyahay waxa weeye horta waa dhaqan xun bay yaqaanaaba waa nin waxa weeye iska fulay ah oo xaafad isaga jiro wax allaale wuxuu qabtana aysan jirin ma garad waan gartay waa drop out nolosha ka dhacsan oo fulay ah midda faan buu la soo galay hadda markaad ka baxdo soo galaya bal anu waxaan ka arkay waa ciyaal moogta ciyaalku waxa weeye dadkii waaweyn bay ku daydaan hadduu isku soo tuuraya asagoo dhaaranaya anu waxbaan dilaa waxbaan kaasoo kale waa fulay dadku ma bartaan waan yaabana marka waxa weeye naagatani waxa weeye dadka ummadda waxa weeye waa in fidmada la fiiriyaa wariyaa reer dhan bay dumisay wariyaa waxa weeye 4 ciyaala oo qurux badan nin dhalay oo gabar Soomaaliyeed u dhashay oo miskiina oo dad ka dhigtay oo soo caansaartay oo waxa weeye iyadii ku dhashay oo wax walba u soo maaratay oo dhageyso oo wax walba u soo samaysay oo dad ka soo dhigtay baa maanta waxa weeye naag xun oo qabyaalad uga kaxaystay in adeer war fidmadaas ummadda Soomaaliyeed waa inay ka hadlaan ummaddu waa inay ka hadlaan reerka la dumiyay ee fidmada loola tagay maanta haddii maanta ay marka reerkaas ninka kala tagtay berrina waxay kala tagaysaa waa ayada lafteedana siduu kaga tagayaa
meeshu ila maadaama maanta lagaa watay reerkaagii ninkaas maanta adiga aawatay berri makuu joogaya adiga soo naagkale kaala tegi mayso caqliga iyo maskaxdu waa inay shaqaysaa anigu kusii dheeraamaya waxaan leeyahay guntan meelahan ka dhaardhaaranaysa ee baqda ka haysa yaa adeer waxa weeye mawlid dad iyo dad buu leeyahay waa nin xiniyo intaa la eg yihiin oo geesi ah waa geesi waxa weeye xiniyo intaa la eg yihiin adeer waxa weeye garxajis meel waa joogaan haddii laba kuu timaado 10 baa la helayaa haddii hal nin tahayna hal nin hadday tahay iyo laba nin waa isaga filan tahay wallahi samaroonna waa xoolo kuwan habar jecelana waa laangadho hargeysa lagu gubayaaba iyaga meel walba ku gubayna dhammaantood marka geesi baa tahay barnaamijku waxa weeye sii wad asxaabta kalena soo qabo waa jira hawl yar baan kala tuurayaa adeer waxa weeye hawshu waa soconaysaa adeer fidmo yaan la isugu eexan waxa weeye dumarka Facebook gabadhii lacaayo dhan ama hal la wada difaaco ama wixii qalad qofkii qaldan qaladkiisa la sheego laakiin waxa intaasoo sanaa la caynayay oo la aflagaadeynay hooyadiin iyo dhiladeen dhasho wase ftada ka wase nacala waaridkii ku yaale laba sanaa caayayse dumarka ma caayo 2 years baa caayaysen wariya hooyadiin annagaa wasnee markaasaad caaca hadda meeshaan kasoo leedihiin guyihiin guntu wada dhashay war waa ku salaamayaa boos aad baan ku salaamayaa hawshaada aylaan dheer gungun dhashay weeyaan gunta bariga burco iyo caaw waxaan ka hadlaynaa iyo magaranaysaa gunta ay tahay magaranaysaa lagu sheegayo waxaan soo qabanayaa nin baan soo qabanayaa ninkaas soo qabanayo aan siinayo waa inuu markiiba magaranaysaa galaa barnaamijkana dhammaantiin boqortooyada sii sheergareeya waxa weeye labadan gumood ee isbiirsaday caawa ayaanu ka hadlaynaa dadku aad bay u badan yihiin waan soo qabanaya ninkaas soo qabanaya guntu dhashay iyo naagtan xune khamriga cabta ee qaysha ee dulliga ah iyo waxa u doodiyo dhanba haddaan yurub way wixii lahayn soo dhow wallahi baba yaa badahay si wax ku gaareen abti si wax ku gaareen niyo waa ilig bay galay feedkii dhowr feed ay ka gaargaarsiiyey markaa ilig bay galay labadii ninna waa xidhan yihiin markaas ku soco waan ka hadli doonaa arrintu soo u dhacday laba nin oo la soo dirsaday ahaayeen markaa waa si fiican baa loo garanaya labadii ninna waa la hayaa kiiskiina waa magaalka la degtay magaalo yaro dhaxgana ka yimaadeen ha si fiican marka arrimo badan ka hadli mayno laakiin ku hadda soo xirno okay haddii xireen beel aan fadhiyo horta mid baa waxa rabaa mid Soomaaliyeed iyo hooyada baan taxilaya waa inay Soomaaliya hor jeclato joogin Yurub dadka waxyaalo badan ay ka qaadan ma fahanteen halkan Yurub waa la anfaaday maahan Afrika ka imaateen maahan qofkina ku meel walba kamarada ina gacan u qaadi aniga dabadeeda kamarada ku xiran gudba halkan ii yaala wax walba waan haystaa ma garat marka ku soco inaad ku soco naagtan iyo arrimeeda marka dadka waxay u haystaan waxay u haystaan in Afrika jooga anfaaday in Afrika la jooga loo haystaa qofka ina loo tago ku soco waana report gareey dhamaantooda report gareey kilibadoodina waan soo dhigay meel wali joogaanba okay ninkaas waa ka go'go ayaan filayaa khadka ka xun balaaya ku soo wacaysa marka live soo qabsato waa la yaab sax ku soco libax boqortooyo samaro balaaya soo wacday ma maqlays hadda mursada tay ku soco nin mursada libaxaate cid laba reer abti mid baa rabaa inaan waxa rabaa cunuga caloosha weyn horta mid baa ku sheega midka caloosha weyn loo halkan ku jiro maanta oo isoo qabo ku hayo calaayo niba ku soco midka xunka caloosha weyn loo hadda meesha ka soo calaayo oo nibaal ay leeyihiin waxa rabaa war xamaal buuha midka xunka nibaal meesha ay leeyihiin oo soo calaayo uqsama billah ana ku iimaana adiga habar ku soco libax ما في عن أصلا ما يسوتشوا وما أنا فاضي هذه لان دير بنان دقا ويل أويا وطلع ده ما فاضي هذه قف أنا لفك بريا يا ملا ما فاضي هذه لأن حنية لها أنا هاي وحنا هالك أوجوا واحد هاي ده كيجا مركل عايقف كعينة أفلقات دي وح كشيء ما فاضي مركل عليه هالك جوكتا وقول ما أنا يوح شيء أقسم بالله أنا بريترين سوق قادنا أنا بريترين سوق قادنا أنا هالك جوكتنا وصايو نعلد كل شيء وصي على البورني وروح أنا على ده والله هذا مقفل أنا بيسوي بلوغ صار يعني وروح أنا سوي بلوغ صار وقال marka midka caloosha buurna ilmaha soo hadlaayo midka xunka qaniiska xunka ana waa arkaysa oo malana xalis oo hadlaayo farasiis kula joogo asoo idhahay ka
كعبو كعب أو على أو بسم الله ور حيوان الله دكان وح ما يقنن مدحنا وحا أركي ما أنت إلياس بروح إليه دبضة برشة أو دبيس بناك سوري قاعد عرضيس أو معناها ماشان السوب بنا نجاي وريد دكان وح 5 ملامية دكان وح 5 ملامية kaas waa garxaj sidaadar kaas 5 ملامية ورينو وح 5 ملامية dhima laha ku soco meel labada nin kale si xun u cay laakiin kaas garac anagu aan dhalay weeyaan oo iba habar jecel naga haysamaysa ilmahayga anaga dhalay ku soco jabuutaawi كان أدرسين كوا ka burcal كلام ما قرنا يعلدي ka burcal la anaga dhalay waxa weeye jabuutaawi muu dhalay عنق حقا جرمك جواشة حيوان كروي waa ilmahay والأسوق قمري عوي الفلوستات إنجليز بيطلق والله هدي أسوق هذا وارد كذا لو ذاك فيديو والله بالله ترى هذا قمري عوي أمبريا كاس أصله يصير الله أو وارد كذا لو ذاك أقسم بالله بين كل شيء ما فهمت هذيك مركزها مالها كسوق على سمالها تسوق من الساعة هذا معاني مركز وحنا سوق من الساعة سوق أبو أدبك سلامة هذه أصحابها هلك أبو سلامة waan ka hadlayaa arinta gacanta iyo waxa waan ka hadlayaa for security purpose baa wax badan aan qarinaynaa waxa weeye wax la qariyo weeyaan waxa soo qabanaya runtii aad iyo aad buu mahadsan yihiin boqortooyada magaranayay ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa laakiin guntu dhashay labada gumood ayaan caawa halkan u fadhiyaa bila taariikhda aan suugaanta lahayn aan abwaanada lahayn aan aqoonyahanada waxa aqoonyahan ay leeyihiin aanu jirin waxa soo qabanaya dhakan soo qabanaya dhaka soo dhow waxa aqoonyahan ay leeyihiin ma jirto waa ninka kule professor Ranlen oo jaamacadda koowaad ee Harvard University ninka ka baxay garxajis waa Soomaali libax ma soo kaca ku soco libax waan soo qaadanaya qalabkayga waan caawa wallahi waan gowracaya wallahi haddaan meelaha ku waxaan ku dhamaan laandheero qooqon baa soo saarleed bla warwan doobiya ku soco geelan saddex uga eegay ku soco iyalka yar uraya meelaha ka xaytamayana iyalkan iyo waxay ka qaadiyaan mid ku soco waxay ka qaadiyaan iyalka yar uraya waxay ka qaadiyaan ma jirto waan gartay ku soco Soomaad garan waan gartay me iyal waxa ka soconayo waa doob dilacsatay adeer waxa weeye horaan u doobi jiray Axmed ku soco markaan iyo mujaahid baa tahay inaad roon ku salaamaya beesha Samaroon waxa weeye maanta waxay soo wada gashay leef waa qalad inay leef soo wada gasho war wallahi hodan wallahi 15 takala waxa hataa rag ma lahaba Samaroon rag ma lahaba dumar bay leeyihiin hayn wax may dhigeyso Axmed anu waan ku qabanaya nacas waa dhigeysanyo aniga dhigeysana waranu reerkani wax rag ay leeyihiin ma jirto dumar bay leeyihiin wallahi bilaa talay makhnuuqa ku meeshaas iyo kuwa kale iyo kuwa hooyo qaar hooyadaahaya ayaa caawa leef la soo galiyay soo ma arkay ma reerka miseynta leefka soo gashay waa dhigeysanayo waxaan way wada kula socdaanay dhigeysanayo waxaan waa idin gumeeday inuu gumeeday ilaahay ma taqaana me dhigeysanayo waniyo ku yo raallahu waxa siinaya qofka waa ka go'ay waxaan siin doonaa ragga meesha ku jira aan siin doonaa soo dhow taliya maxamed kaxas gungun dhashay weeyaan oo kala rabay 15 nin baa leef lagu soo galay mid waxa la yiraahdaa xamaal buu ka aan jiray idaacadda raadiyo Hargeysa oo waxa la yiraahdaa Nabiil Faantax Weyne waa ninkan ma garanayay buuriga cuna aqoon uu sheeganay warana boqolkiiba 90 anada ana double masterida hooyadan Allah dhalay ku soco taliye soo dhow السلام عليكم وعليكم السلام soo dhow غير ولا ما فهمتها oo salaamay waxa weeye qoladan yareer beesha maxaad leedahay iyo waxaan soo raacay maxaad leedahay ku soco waxa weeye inamada yareer waa inamadii oor farada ahaa waa qoladii taksiga cad ku dhalatay ee bilaa aaba weeye waxa weeye dad badan oo qoladii berigii dalka marka la soo galay ah waa kuwii raaya lagaga tegay meesha weeye marka qolada habar jeeray waxbay sheegtaan dadka wax weeye adigana waxa tahay nin landheero banaan tegay la yaqaano asalkiisa halkaad ka timid waxba la aqoon loo leeyahay marka waxa weeye waxaan leeyahay adeer garacow ummadda ka fariista garac baad tihiin annagu waanu naqaanaa reer burcaanu nahay wixiina dhalayna waanu garanaynaa dadkiinina dalka ma joogaan waa dadkii la xasuuqay la laayay weeye garac baad haydeen tagsiga cad baad ku dhalateen mawliid haddaydu gaari weydaan aadhade
والله بالله طلع لفلد قوسه بالله طلع AK47 حرابتي كهرة AK47 iyo BM baa la iskaga shaqeynaya idinkii hooyadiinba ها والله لسبري مايو waxaan leeyahay isbari maayo qoladana waxaan leeyahay meelaha ka qaylinaysa mawlid iyo wax la soo doonaysana adeer mawlid waa la dheere oo wax boqortooyo wey wuxuu doono ku hadlaya xor weeye cid la hadli karta sabaro baa la hadli karin cidna la hadli kari mayso waxaa tiraa ninba hargeysa lagu gubiya bartan dhammaantiin tan geliya taayir baan ku gubaya iyadoo dhashay idinkana waxa weeye kun huunadaana waa naqaanaa huunadan toban wax ragay leeyihiinba ma jirta qaar baa waxay ku leeyihin wallaahi ninkaa mawlid wuxuu ku hadlayay 15 dabaqaan sir iska soo tuur waa sida dumarka u hadlayaan waa rag sida ragga uma hadli taqaanaan gabayadiina caawon ka hadlaya iyo wixii laisku xamin jiray ma yaqaanaan muuse ma yaqaan muuse uu ku qasaxnaa waa malay ku soo haye ma yaqaanaan marka waxa weeye dad aqoon dheer maaha dad waxa kuuri rag iyo rabbi yaqaana ma waa dadka dee waxa weeye meel lagaga dhalayo meel aan la gareerin sida saxarada loo dhigay xaarka sida xaarka loo dhigay waalid iyo ehel iyo cidna male de waa garac weeye oo ma garanaysaa ummadda marka mawlid waa nin qiimo badan waxa weeye inamadaasi garacda ah ee taxiga cad lagu dhalay taxiga cad baa lagu dhalay horta kan jarmalka jooga waa ina Djibouti waa nin garxajo nin reex Xuseen weeyaan ma garat waa biyaheeni walaal haddii ciidanka carrada nahay waa inaan soo celinaa inankan waa inan garxajsa aabihiina waa la garanayaa oo waxa muu dhali jirin nin reex Xuseen oo burco jooga dhalay oo taxiga cad ku dhalay marka isaga waan soo ceshanaynaa waa inan keeni oo de magaranaysaa fadara noqday waan soo ceshanaynaa kan kale Soomaali engineer Amir ee naagtiisu ka tagtay maxaa la isaga wiilka dhalaya kaasi marka horeba waxay uga tagtayba waa qariisnimo uga tagtay maaha ma garanaysaa asaga laftiisa carruurtan uu sheeganayo uu dhalinba hadduu waa marka inantan iyo waxaan uu sheegaya aanu garmayo qof asaga lagu dhuftaba dee muxuu ku dhufanba asagii baa lagu dhuftaa qariisa marka waxaan leeyahay kaadee intaa anigu aqoon kalena malihi waxaan leeyahay mawlid mana gaadhaysid harkiisana ma gaadhaysid waxaad qariis baa tahay qariisnimadaada meelaha la meeriso ama injineer amiir ha lagu yidhahdo ama futadii hooyada ha lagu yidhahde baasiro baas ku dhalay haddii kale wallahi futada xabad lagala dhacaya futada xabad lagala dhacaya aad iyo aad mawlid aad baan ku salaamayaa boqortooyo aad baan taliya ku garaac qurigaaga BKM-ka ila fataxunta meesha fataxunayaan noolaan baan ku halka xaggaasna ka shaqeeyaan una xaggana ka shaqeeyaan aad u maasantay ka shaqe waan bilaabaya dadka qaar waxay leeyihiin mawlidow arrinta bal ka waran caawa sheekada ay soo abaabuleen waan ka hadlayaa for security purpose Saciid waan ku salaamayaa soo dhow Saciid mujaahidkii ugu weedaa garxajis baa isagana soo qabtay waxa weeye fataxun iyo reer Saciid soo dhow aad baan ku salaamay salaan qaaliya waa ninka waxa weeye waxaan ba gubagabagooda dhimantahay aad baan ka qaaday Saciid soo dhow والوك سلام سلام قاليا waan ka hadlayaa nagtarada واللوقان كوسو شيغيا niman kan waxa lagu dhuftaa mid inta qabatorta si xun u dil oo lagu tajabay waan garaacay labadiiba wallahi waan garaacay halkaas aan fadhiyaa waxa anigu dhowr baa lagu tajabiyo khalaas aan balas baan saaray dib dambe binaantooda sanqadhooda lama arag lama maqal marka arrimo badan for security purpose baan u qarinaa soo ana luuqa kugu soo sheegay waxa la dhacaysid la dhac inta la dhaci karaysa hadhow adigoo dul taagan breeska ugu yeedhaan balaaskana qaad waxa weeyaan nimankan dad xishooda ma aha waa dad wax shacwe baqaan marka eego sida tukaan mid ka dishid si xun u dishid oo baalaha ka raftid ma garan way isku sheegayaan ma garanaysaa maqaaxyaasha meelaha ay tagaan ee bagaaraha marka mid baa la dilaa si xun dhiiggiisa la seedhiyaa hadhowna way isku sheegayaan rag iyo dumar weynaydaasi gurayaan canjaraday cunayaan weynay dhiigu hawda ha gura hawda dhiig dalkaas markaas marka adigu si professional anaa kugu soo sheegaysa nimanka waxyaalaha ay ka baqaan anaa kugu soo sheegaya luuqa kugu soo gelayaa baashii aad indhaha kaga shubi jirtayna wad baan kuulo istirideeda qabsaan wad qabsatay meeshaas libaax baad wallahi waa lagu soo dhawaan laay bastooladeeda waan haysta madaxa kaga furay anigu ma joojiye anigii dowladda u istaashanay dalka Australia waxaan ku yiri waxaan waa dad najaasa waa dad xun weeyaan waxaan jabhada la diyaarinay weeyaan jabhadan waxaan u diyaarinay waxa weeyaan waa in imikaygana la sheelalkan u soo diyaarinay waa in lagu soo xidhaa halka oo lagu jirdilaa iyo qoyskooda iyo waxay ka soo jeedaanba waa dad uskaga weeyaan naxariista ha tusina
ونحريصة توصل ولقى النبع نحريصة السنة دادلت كودا ما قرأت naagtan waxaa shaqaamada ayada maxaad ka leedahay iyo waxaan iyo dumarka ma jeclin wax ka sheego waa caawradaas iyadii baa hoosta ka jeexada laga daa ya miyaad aragtay fanaaniinteena miyaad aragtay naag suuqa ku jirto waa la mid war aragtay weligaa allah fanaanado laleeyahay waa garxaj oo xun miyaad aragtay weligaa allah ila fanaaniin been leenahay dadkeena waa dadka ugu fiican weeyaan soomaalida kale oo dhan way fiican yihiin sax ku soco warka waxa kuu sheegayaa nimankan mid amba laba mintad gashid qabo ma garat ana ku soo sheegay wax la dhacaysid waxaas ku sheegayaa waxa ku sheegay ha u joojinin بوليس ka soo register soo auto police ka soo wixii labadaas wixii yihiin خلاص waana kula soo hal doonaa ana war badan ku haya way okay ninkaan soo qabanaya waan ka hadli doonaa dadka qaar waxay leeyihiin mawlidow barnaamijka blow okay waxaan soo qabanaya hadaba soo qabanaya nin isaguna ma garanayay nin durriyada waan isaguna soo qabanaya soo qabso horta waxaan idin sheegayaa dadkani waa dad aan taariikh lahayn waa dad ma garanayay laangaaba oo ciilan markay dadku ciilan yihiin ay laangaabka yihiin liyo waxay ma garanayay samayn karaan ma jirto liyo waxay samayn karaan adeer ma jirto meel walbana waanu joognaa meel walbana adeer waxa weeye ma garanayay annaga gabadhan soo qabanaya gabadhaasaan siinaya naagtan ilka badanna wallaahi billaahi tallaahi may soo shaqo tegin wax badanna way soo dirdirtay haa soo dhow assalaamu calaykum anigu shalay baan ka hadlay iyagoo ciida galacaynaya nimankooga iyo naagahoogaba waxaan idiin sheegayaa dhiladii ugu weyneed ee guska nimanka sug war aduu iga aamu anaa hadlaya iga aamu nacallaa aabbihiin ku yaale huush yahay xaafajadii ayaan idinku celin doonaa wallaahi dhilada oo maxay haday la dhahayo hodan cabdiraxmaan maxay haday gabdhaha garxajis daraaddeed lagu caynayo ayaan idiin sheegayaa waa dhilo in nimanka dhan gusaskooga maaragtay ayay soo cabirtay may fahantay mid walba intay cabirto ayaa maxay haday lagu dhaqleeyaa may fahantay waxaan sheegayaa qoladan kale oo gadabirsiga la sheegayo hooyadiin iyo huushtaatiinba wasaana idin wasa nacallaa hooyadiin ku yaali naagahooga iyo nimankooga inta qol ay life ay samaysteen ayay waxay ku caayinayeen gabdhaha ciida gale oo maxayday soo qaqabanayeen may fahantay uu dhahaya maxayday dhilooyin weeyaan gabdhaha garxasis iyo gabdhaha isaaqba ayay dhahayeen may kala qaadaynin nimanka u hiilinayaan nacallaa aabbihiin ku yaale dhiig ma liidine wax habar jecelow nacallaa hooyadiin ku yaale maanta raashiqa saxaaq waa isku mid kala dilayo iyo kala la aagayo iyo kala la dagaalayo iyo kuwa la caynaya raashiqa saxaaq bay caynayeen wallaahi inaanan been ku sheegan ilaa oo hooyaday ka qad cunug yaroo fataala oo guduudan ayaa dadka soo qaqabanayay waxaan idiin sheegayaa dhilada dhuqbada ah ee iska masiibtada ah ee gusaska ragga cabirta ee mid walba intuu wasa ka dhaqaajiyo ee hodan cabdiraxmaan la dhahoy anaa ku wasa hooyadaana dhilay ahayd fakinka hargeysa ayay joogtay waan aqaanaa may fahantay nacallaa hooyadaa ku yaala asalkaagii adigaaba laba nin iska kaa dhaleen maxaabad ka sheegi awlaadaada dhiladii ku dhasho was maxaad iga qaadi kartaa naag isaaqaan ahay naagtaad caynayseen iyo isaaqaad caynayseen midgee oo midgaha kala jira anaa dadida ka dhiga horta asalkiinii gadabiirsiyow su-aal baan idin weydiiyey aabbihiin aawe bal kelmadaas iga soo qaba gadabiirsigow yaa gadabiirsiga la sheegayo hooyo aabahood aawe laba nin baa iska gadabiirsi miyaad aragtay shiikhii gadabiirsi aawe bal ii sheega iyadaaba welaha nacallaa aabbihiin ku yaal markaad naagaha isaaqa caynayseen anigu daraad waan idinla joogay waxaan ku jira qolkaas aad maxayda naagihiina dhilooyinka ah ee ilaa turkiga iyo talyaanigii lagu wasi jiray
hargeysa fakinkii hargeysa hodan cabdiraxmaan hooyadeed baaba lagu wasi jiray cabdiqays baa wasi jiray maxaad meel kale ka raadin nixnaa fanaaniin oo ciyaal fanaan baan nahay may fahantay dhiladii ku dhashay wase hodan cabdiraxmaanay nin soo maxaa heeday nin garxaajisa niman kuma soo dirin dhilayaadna hargeysa way kaaga dhamaatay hargeysa way kaaga dhamaatay dhiladii ku dhashay wase anaa kugu dhex wasaaya gabdhaha isaaq aad caynaysid gabdhaha isaaq oo nimanka gadabiirsiinta u soo fariistaan oo naagahooda soo qabqabtaan anu shalay waan idin arkay may fahantay nacallaa hooyadinku huushay xafajada iska soo dhaqa xafajada markaad annaka nala hadlaysiin ama gabdhaha isaaq aad caynaysiin xafajada iska soo dhaqa odaygii gadabiirsina waxaan idinka baahanahay halkuu ka yimiday soo sheega hooyaday wase ilaa naag baa ahayd gadabiirsiye naag baa idin dhashe hodan cabdiraxmaanay sidii lagu waseeyey turkiga iyo talyaani iyo ingiriiska ayaa lagugu waseeyey nacallaa hooyadaa ku yaala maalakaas raggaagii aad ku dirtay nimanka dhiladii idin dhashay ku yaale gusaska nimankay cabirtaa gusaska nimanka ayaa loo soo diray run baan idiin sheegayaay naayaa maraykan baan kula joogaa dhiladii ku dhashay waan kugu dhex wasaa hooyadaana fakinka hargeysa ayuu cabdiqays ku wasi jiray may fahantay wiceel bay ahayd adiga qudhigaaga iska daa ilmaad sheegaysaa ilma yaro saqiira anugu ma caayayo laakiin anugu waxaan kuu hubaa aabbaha adiga qudhigaaga ayaa maxay dhahay laba nin ku wada dhasheen ay ku dhaleen may fahantay hooyana fakin bay ahayd nacallaa hooyadaa ku yaale markaad gabdhaha isaaqa caynaysid yaa waan kugu dhex wasaa lafaan kugu dhex wasaa hargeysaan kugu dhex wasaa huushta kala jiri nacallaa hooyadin ku yaale sharmuuto gadabiirsi wallaahi maanta haddee magaaladayda ila joogleed waan wasi lahaa laf baan ku wasi lahaa nacallaa aabaha ku yaale maaajis bay caynaya wallaahi mawliidow haddaan been kuu sheegayo ilaahow lixdal xaakeliyaata maaha gabdhaha isaaq oo dhan bay caynayeen anaa joogay niman bal ka waran yaa soo wax faqasha maaha waa faqash dhashay wax la soo dhawaysta miyi ahun war hadda masalan baan kaaga shekeynaya dagaaladii baan kaaga shekeynaya anigu waxa ii waanoogay wallahi I don't like ma jecli because dagaalkii markuu dhacay ahaw ma joogto ay dhaheen markaasaa nimankii saacad muusaa yimiday waxay yidhahdeen ahaw ma jiiftid xadradii xaaji daayirisoo ma jiiftid taariikhahaasaan la soo maray anaku ilaahay dartii baan kaga dhaafnay mooyaane faqash bay haayeen anugu waan aqaanaa run baan idiin sheegaya hodan cabdiraxmaaney yaa gusaska ragga ha cabirin may fahantay kolba mid maxay ahayd meel walba oo lagugu wasaa markaad dhilooyinkii huushta ahaa ee gadabiirsi ee nacallaa aabihii ku yaala markaad naagaha isaaq caynayseen oo gabdhaha garxajisada caynayseen anu shalay waan idinla joogay qolkaasna waan ku jiray niman ragay haayeen naag isaaq dhilanimaanka waad ku sheegayseen inantiin waxaa la yidhi mayd maxaa u dambeeyey tan tobanka nin ay maxay dhahay hal bil ay wada waseen waa in adeertiin may fahantay hooyadeed baaba cabdiqays wasi jiray run baan kuu sheegayaaye iyada qudhigaygaban dnakeena laga qaadahay ay ahayd marka gabdhaha isaaq markaad caynaysiin ood qolal isku samaysateen oon anigu joogin oo lifeka aan ku jiray dhiladii dhasho ku yaale huushta dhalay nacallaa qolka maxaa la dhaha ana wicne dhiladii ku dhasho was ana isugiya may fahantay sug adigu mawliidow sheekadan adiga kuuma taalo mawliidow adiga sheekada kuuma taalo ragan garaacay anigu way ku soco naagahaasna iyo canab baa ku filan wallahi hooyadeed baan brisho soo qistigani bal wuxuu qabta markaa idinku iyadu dhashay waa tan hooyaday macaan allah iga qaaday inaana been idin sheegin gabadh xun oo la caayay 10 naagood oo idagayso sug
سوكوب dhilo xidho gadabiirsi ay soo wacayse inaan laf ku suga dhigaan rabaaye ما فيديو dadka tusayso dhaay saaqoo dhan bay caynayeen nacalaa biyo ku yaal huushta kala jira boqdii hargeysa ayay naagihiina lagu wasi jiray may fahamtay fakinka hargeysa ayaa maxay dhahay hodan cabdiraxmaan lagu dhalay dhiladii ku dhashay wasay dhilaya ilkaa dhaadheer leh markaan ku wasaayo wallaahi bilaah waxaan kugu dul wasaa gadabiirsi aan kugu dul wasaa gadabiirsi dhiladii ku dhashay ku yaalay markaad gabdhaha garxajis caynaysay gabdhaha isaaqaad caynaysay nimanka gadabiirsiyo dhiladiida dhashay ku kulligii fareen baan nahay who cares nin walba nina jirkiis kama janno tago yaa ka mid ahaa waa naaga isaaqa wiirkaad yaa ka mid ahaa magacyadooda sheeg magacyadooda war waa maxidho fataalo oo yar gaaban maaragta oo ilkaa casle nabiil kale dhaso ma nabiil maaha ku kale oo maxay ahaday jarmalgiga iyo meelahaas adu ninka intay naagaha soo kaxeeyaan ayay dhahayeen naagaha isaaq waa dhilooyin run baan idiin sheegaya wallahi saasay dhahayeen maanta ku raaxaysta naag isaaq baa idinla hadlaysa dhiladii idin dhashay ku yaali dhilada xune gusaska ragga cabirta waa la yaqaanaa waa hodan cabdiraxmaan hooyadeedna fakinka hargeysay ka niikin jirtay hodan cabdiraxmaan ee adiga qudhigaaga ayaa xaaraan lagugu dhalay xaaraan may fahamtay laba nin baa hooyadaaba isku qabsaday hooyadii wase huushiyay ilkaa markaan idin wasaayo ilkaa waan idinka soo saaraya ila huush baa tiine dhiladii dhasho ku yaalay markaad gabdhaha isaaqa caynayseen oo maxay dhahay leefka ayaan kula jiray naagihiina intaad soo qabateen ayaad dhahayseen naagaha isaaqa caaya nimanka xune waxaan idiin sheegayaa nebi waa dhammaantood israaci dhammaantood waa fadare khadka waan kusoo noqonayaa leifka waa ka maamada idhagayso waxaan u sheegayaa suuq baan ku jiraaye dad baa soo kool garaynaya egas burcow naagaha shalay toole lagu caynayey facebooka ku jira waa naaga ilmaadeeradaaya annakaana la caayey gabdhaha isaaq baa la caayey damiir baanad lahayn nacalaabaha ku yaala kan xune amiir la dhahayo nacalaabaha ku yaala annakaana la caayey oo naagaha isaaq baa la caayey fideoga waan sheergareeyey adigana aday ku taalla haddaad soo raacaysid huush haddaad soo raacaysid dhilada xune gusaska nimanka maxaa yeelay cabirta ee habeen walba lagu waso yaa tulki iyo talyaanigu wasi jiray hooyadeed buu maxaa yeelay fakinka hargeysaa lagu wasi jiray nacala hooyada gabdhaha ciidagalo waa gob huush yahay hargeysaa kugu dhex wasa hargeysa aan idinku wasa nacala hawma joogno xadradii daahir soo ma jiiftid waynu isnaqaanaa huushay wax kale awood hadday kugu qaban waayaan gadabiirsigu aan idinka sheekeeya taariikhda aan idinka sheekeeye wallaahi bilaahi tallaahi waa dhaqan ay u leeyihiin war bay sii wadaan cabdillah maxaa sayidkii baa sheegay markay sii socdaanna war bay soo wadaan markay soo socdaanna war bay soo wadaan xaasidnimo waxay ka qabaan maxaa yeelay dhuusada maaragtay dadku waa la xusho dhuusada ayay maxaa yeelay dirac ay dhinaca kaa marayaan xaasidnimo waxay ka qabaan maxaa uraya war magaday birsi baa meesha ku dhuusaa la leeyahay yay fahamtay waan gartay garxajis ilaahaa kaa dhigay may fahamtay guul iyo gabadhiba waan ku leeyahay 15 nin maahe wixii caawi soo jawaabo dhan naagay ahaayeen dhammaantood wax rag bay isku sheegay laakiin naagay ahaayeen keligay baana ku fulan wallaahi imkan live ka dambe soo gelayaa fiidiyoyadan hayo oo dhan lagu qayliyo xil oo dhan oo soo dhigay idinkana bal hooyadiin dhilada ahayd meeshay dhigaysa arki doona meeshana way la joogaa Francisca ragga caayo walid magaciisa wallahi ragga wax caayo habla caayo naago maxay ahayd niman ayaa maanta beesha isaaqa caynayay waxa caynayay gabdhaha garxajis waa gob gabdhaha garxajis maxay ahayd fakiga kaysa lagama keenin nacala hooyadin ku yaala hodan cabdiraxmaan ayaana ku wasaaya dhiladii ku dhashay was nacala aabaha ku yaala soo kaxe ninka isaaq soomaanta kuma dirin nima gadabiirsiya yaa
hargeysa haddaad timaadidna waa kugu dhex wasaa dhiladii kugu dhashay was qaxbadii qaxbada kala jirin maanta waa inoo bilaamatay gadabiirsi tuubaatiin aabihiin iiga sheekeeya aabihiin hadduu halku ka yimid anuu shaqo saxaaq meeshu maxay ahaday ku duugaye waan aqaanaaye naag baa dhasho oo la dhaho gadabiirsi aabba male nacala aabihiin ku yaale halkaa ka wad baan ku idhi aad baan ku salaamay aad baan ku salaamay adigu aamus annakaa naqaana dhilooyinka gadabiirsi adiga u jooga adaa u jooga waan ku salaamaya adaa u jooga aad baad mahadsantahay garabkaagaan taagana garabkaaga aad iyo aad baan ku salaamaya aad hadhow baad ila soo doontaa ii sheegi doontaa liiska raggaas meeshii joogaan haddaanan ku garaacin wallaahi billahi tallahi yurub la isdhex eriyeen mawliid layma idhaa baan ku idhi barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayaa wax yar kadib baan soo gelayaa la socda fiidiyoyadaan mar walba soo gelinayo naagtaa iyo waxa wicilladay wadato dhan waxa weeye wallaahi facebook inaan wada joogayn facebook anaa joogay anigoo boqortooyaa joogay ay iyo dhiladii dhashaba wasi